الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، waxaan soo gaarnay bishii Shacbaan aakhirkeeda. waxaynu ugu soo dhawaafooda inugu soo haya bishii Ramadaan ee barakaysnayd. Allah waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo, ka faa'iidaysigeedana Ilaahay na waafajiyo tabaaraka wa tacaala. bishaasi waa jaanis aad u weyn iyo fursad aad qaali u ah nolosha ruuxa muslimka ah, kuma fududa. rabbi tabaaraka wa tacaala ummadda nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi buu ugu deeqay bishaa barakaysan iyo khayraadka dhexdeeda ku jira, oo ay ka mid tahay laylatulqadri, oo qadarkeeda iyo qiyaasteeda iyo qiimaheeda qur-aanku ka sheekeeyey. haddaba bishii haddayna soo hayso, sidee baan ku qaabilaa? sideen u soo dhowaynaa? maxaa ka horeeyo loo baahan yahay? seen isugu diyaarinaa? waa su-aalaan isweydiinayna, loona baahan yahay inaan jawaab u helno. ma raashiimaan uruursannaa? waxaan isku mashquulinaa inaan raashiimo iibsanno. waa arrin iska bannaan, laakiin muhiimaddu dhankaa ma aha. muhiimaddu waxa weeyaan jaaniskan rabbigaa ku siiyo tabaaraka wa tacaala iyo nicmadan haddiiba ilaahay ku gaadhsiiyo, seed uga shukrin, see looga faa'iidaystaa? tilaabooyinka soo socda ayaa loo baahan yahay inaynu qaadanno intayna bisha inoo soo gelin. tilaabada koowaadi waxa weeye inaan ogaanno fursadda haddii ilaahay ku siiyo, ku soo gaadhsiiyo, caafimaad iyo nabadgelyo kugu gaadhsiiyo, oo adoon nool ilaahay kugu simo tabaaraka wa tacaala, waxaad ogaanaysaa haddaad dayacdo oodan jaaniska ka faa'iidaysanin, waa nasiib xumo, waana natiijo xun iyo caaqibo xun oo adduunkaaga iyo aakhiradaadaba saamayn kugu yeelanaya. haddaad ka faa'iidaysato sida la rabo uga faa'iidaysatana, waa liibaan weyn oo adduunkaaga iyo aakhiradaadaba saamayn ku yeelanaya. inay sidaa arrintu tahay waxaa tilmaamaya xadiidka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh, xadiid Kacb ibnu Cujra. wuxuu leeyahay saxaabigaasi, nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa maalin maalmaha ka mida saxaabadiisa wuxuu ku yidhi, mimbarka imaadda. hadal buu rabaa inuu u jeediyo. wuxuu yidhi, mimbarkii baan nimid, waa soo fadhiisannay. markaan mimbarkii nimid buu nebigu wuxuu bilaabay inuu mimbarka fuulo. dabcan mimbarka nebigu sal alla alay wasalam 3 darajo ah. tii ugu horraysay markuu cagta saaray buu nebigu aamiin yidhi. tii labaad markuu saarayna wuxuu yidhi aamiin. tii saddexaad markuu saarayna wuxuu yidhi aamiin, oo macnaheedu yahay allahu aqbal. markuu soo degay oo kelimadii uu rabay intuu jeediyey mimbarkii ka soo degay, ayaan weydiinay buu yidhi, waxaan nidhi rasuulka ilaahayow, maanta waxaan kaa maqalay waxaanan horay kaaga maqli jirin. mimbarka caadi baad u fuuli jirtay, laakiin maanta markaad mimbarka fuulaysay 3 goor aamiin 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 baan kaa maqalay. maxay ahayd ujeeddadu? markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam, markaan tilaabadii ugu horraysay qaaday oon darajkii ugu horreeya cagta saaray, ayaa jibriil baa ii yimid buu nebigu sal alla alay wasalam, malakul jibriil. markaasuu 3 farriimood ii dhiibay buu yidhi. farriinta ugu horraysa waxaa loo dhiibay markuu darajka ugu horreeya cagta saaroo tilaabadii ugu horraysay qaaday. maxay xambaarsan tahay? wuxuu yidhi, jibriil baa dhahay, ha fogaado cid ramadaan soo gaadhay oo ramadaan dhammaaday isagoon loo dembi dhaafin. kaasi ha fogaado
آمين بان إليه هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه markii labaad markaan qaaday tilaabadii labaad buu hadana wuxuu igu yiri ha fogaado cid adiga nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam magacaaga agtiisa lagu sheegay oo lagu xusay oo aan kugu saliyin kaana ha fogaado aamin baan idin waa tii labaad markaan tilaabadii saddexaad qaaday buu hadana wuxuu igu yiri ha fogaado ruux labadiisii waalid agtiisa ay ku gaboobeen oo ku duqoobeen ama mid kamida agtiisa ku duqoobay oo aynan jannada gelinin kaana ha fogaado aamin baan idin labadii waalid baa u baahday waa daciifeen xilligii janno laga kasban lahaa oo laga ducaysan lahaa bay agtiisa ku gaareen waa dayacay oo janno kamuusan kasbanin kaana ha fogaado aamin baan idin ujeedada xadiidku waxa way u fiirso ramadaan baad soo gaadhay xaaladaadii waxba iskama bedelin bishii waa ku dhaaftay adigoon wax isbedela samaynin acmaashii lagugu dambi dhaafi lahaa aan la imaanin sidaasaa bishii waqtigii iyo fursaddii iyo jaaniskii kugu dhaafay waad habaaran tahay shaki male yaa ku habaaray malakul jibriil baa ku habaaray يا آمين ويدو الله أقبل يدي النبي محمد يدي صلوات ربي والسلام عليه سيد الملائكة وسيد البشر لوضع ساد دعاء إيا هبارك دوضع إسوحيا جبريل نوى هباريا نبي محمد نوى حليا الله أقبل ما ويقولتها إن لسوء لنا أبدا هريبي إريدك جليسا الله نك أقبل يا تبارك وتعالى سياس درادت روح رمضان أصوغ ليون اسبدلين ولودن بدافن كاسي هفوغادو وفعلا وفوقيه تائنا مركا أوغاتو حديث كان مركا خصوصاتو اسهر لكتو مرولبا اسبدل باكو قد حيوانا مضنتهي مرولبا إنو سن قلبي آغا كبه تلا بدا اللبات اللو باهيا إن النقاض النبيش سودوين سيدا وحوي إن أينو إلهي أتوبت كامل وأن صون قلنا ووحي هري نوغا دعي أن كقوم مونو وحي أن ضيعني أن كقوم مونو قلبي أنو كحمون صدر وحي ذنوبي أن كتشرنا أن كتحبحنو قوان أن كقارنا إنينا ديب دبا أغنو قنن توبة شروط دي وضط إنينو لنمانو بشكور هاي فايدين إيسا لأن التوبة قلبي هجاكسا قلبي نورسا قلبي إصلاحسا قلبي أوديسي حوجيسي سوء عشدا لأن قلبي ذنوبتها الله يصير ضعيفسا قلبي مركي توبد حوجسنا أودوح هليا وكل قاقه وطاعة خيراتك وكسمايو قرآن كيبو معاه سنة يا صدقتي وأفضل دانيسا صونك يا مشقدي سيد عبادتي سحنباريا خيرات كيبو فضودي سنة يا سفي عروس همينيا لكن قلبي مركو هالليسيني واسكساقيا سيدي للربي وحوس همين ماي توبد مركب ماشي حرمتها إنجنكي هوشا بقبل لها أي تودو حاجات سينيسا سيداس درادد وحاكوس ارتقل قلبي حوق بدن إيه إيمان حوق بدن إناد بشا فوقا بشا وبالتالي إناد خيرات فربدن كسبته ودوحوين مركا كفا إليسا الله تبارك وتعالى وحليا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون مؤمنين تيو إذنكو إذن الإله أصول لابتا الله أصول لابتا ذنوبتك صول نقضا سئاد الليبانتان وفيرس ليبانتو وحي كل حرانتها التوبة إنا تصول نقضا ودي الله كصول أصول لابتا ذنوبتك أمان تيدنا لغا صول نقضا تلاوة الصدحات بأن بيشك صور دوينينا وحيتا إنه اسكو تحلوشينو إنه برانو بيشا إيه أحكام تكساب سنة قاب كل لوجا فايديستا صوم باكو صوصعد صوم كأحكام تيس قاب كل لو حدا محل لقى إلالية محل لو باهية هاي إن الصوم كأحكام تيس برت إن بيشا قيبة سيابها كلا قد سنة لوجا فايديسان كرا إن أدبرت لأن وحوي إن بدنوا ضدك الصومان كم يضو مسلمين وللأسف وحضر كيسا ودلاليا
لكن دذلك هو هل بعاد نقول لسي علشان موافق سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله درينا ما بقى هبا وحي الله درينا ما بقى هبا مرة هدي عملك أتسمين يسوء خلافه هديجي طريق النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه أديك الرفاضية وحبكه الميسيد ساس ردد بالنبي نوح صلى الله عليه وسلم روحي عمل صمية عمل كان وصن أمر كان نجي وافق سنين أو خلاف سنين عمل كوالوسو حلنا يا أبو النبي صلوات ربي وسلام عليه مركا وحا سيئنا سيادة متعب خسارين سيد ذلك هاجي وحنا السمين سمره سأضد وسط الله أقبله وإن أحكام تبرته وإن أخرده وإن دقيسته وإن ويديسه وإن كد داشه وذن إلهي الجاهل لمكو عبده وإن هذا الإلهي الجاهل لمكو عبده أضع أقامتي إي علمك إي علمتي وكتبتي بهالي كريه إن هذا الإلهي الجاهل لمكو عبدين ومركا عذر دار هالي ميس ساس ترادت إنه كد دالنه إنه علمك كصحي قادر خاصة وحي كصاب سنبشة بركة سنة رمضان تنوى قضبك حقوه نبينا صلوات ربي وسلام عليه حديث بكسوغا أوليه هاي وحاب بدن ضد إن بدن ضدك كم دوا صوميه صوم كودنا كهلي مايان وحان أون إيجاتك أهاي والصومي امتدي واسكداي عبيتانك واسكداي قلمدي وكفو قادي لكن إنو دالي والرفاضي وحان أهاي صونك كهلي ماي مدبها بينكي تاغنو صلاة تاغنو عبادي سنية تاغني دا إيا عبادة دا إيا صلاة دانا سوچيد وحان أهين كهلي ماي وسوچيد بورددي وقتك لكن أجل كم هلي صوت معي تحت لأن اللغة تير أو عمل كاللغو أقبلا متكمقين أما إخلاص يا إلهي درتي باكمك وضنك لوليه أما ما هي عمل كان موافق سنة طريقي هديقي يا سنة النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه لبدا مدي آفدو كإيمان إيسا تعالوا وحيكو إيمان كرتا إناد أقوال لا دهي وميشا آد وحديقي إيساءات قرانيس قضبك حقا اللوبة هي تلاوة حكتة اللوبة هي إنه قادرنا بيش كسو دوينا وحيتا إن أينو قرشي سنو سيدي أينو بيش أغفى إذي سن له محاكو ديار سنو كو قرشي سن إمسا قور بادرتا إن القرآن كختمته وقت جيدي مو ديارس محاد حولات ديارس سدو بيش رمضان وقلت لك الشيء إلا صدق الله بحصده حلية أغفى دي بدن بيكم يتهي حول أبو ديارس سدو قرشي سيما جيران عمرئي طاعات مكو ديارسين قيامك يا صلاتها يا وناجن يا نفحات يا خيرات كان قرشة ما ديارس معاكو ديارس خاصة سلف كرضوان الله عليه وحي أهان شرين بشو مركي صوت وصوت كشو هؤلاء كرونا وصوت فدودين شرين حتى كتبتها يا آخرين يا حديث يا فقه أي درس يا وتوشين شرين وحيدي شرين بشي قرآن كصوت كشي مركز أوحى لقابلي شرين قرآن أخرس يا طاعاتك كلا لقابلي marka takhtiid iyo qorsho waxa keenay in adduunyadeenu qorshaysantahay oo nidaamsantahay aakhiradeennana jaanisyada ina marayo qorsho la'aan inay nagu maraan markay soo galaan bilaha ganacsigu dhaqdhaqaaqo bilaha ganacsigu kala socdo markay soo galaan intayna soo gelin ka hor laba bilood bil يا وحي على أدونك تشريب ملك استلقى كينا بخارة بحسمة على زود ديارنا يا شانس كانوني والبلايا قدر كأوجب بدن الربح هي فائدة أكرم صو كفوتشيسو كقاضي طيب أدونك هذا مخطط شانس كنا كمان طافو البحثات كتهاي حريف نوات كتهاي من إيش جرب تلقى قوسطو الدنيا مركي تمادو لكن آخر هذا هو مهلهل آخر هذا هو مهلهل سيداس درادة وحان وبهنها إنان تخطيط يقرشك قال بشل سادوا بايدي سنة أريمها كان اللوبة هي وحكم ذو بشل كسر دويننا هرتنا اللوبة هي إنه لن ما العزيمة الصادقة قوان قلبي قاقا كقوان إلهينا الله كاشة تبارك وتعالى لأن قدرك كل قوان كقلبي قاوية دلالنا عاد قدرته
allana aad la kaashato alla waa kuu xaqiijinaya tabaaraka wa tacaala ama waxay ka timaadaa shay aad rabtay inuu kuu xaqiiqoobi waayo ama ma ahayd go'aankaaga daciifa go'aanka qalbiga meeshaasaa wax walba ka yimaadaan innama alacmaalu binniyaat halkaasaa go'aanku ka go'a haddii daciif halkaasi dacfi ku jiro waxay saamaynaysaa shaygii inuu hirgalo haddii aadan go'aankii qalbiga intaad la timid aadan dadaalkii iyo camalkii ku darinna ayadana dee layska kaasiin maayo sunna ilaahay maa camal inaad la timaado waayo haddii labada intaad isku darto ilaahay aadan kaashaninna ayadana lagu siin maayo saasay u badan tahay saas daraaddeed baa nabigeenu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam احرص على ما ينفعك واستعن بالله الحرص والاستعانة وإن المركز كدرنا قوانك قلبنا وإن لهرو دذال كيدنا وقت كيدنا مركي لقارو وإن كدرته اللنا كاشته تبارك وتعالى لأنه لا حول ولا قوة إلا به تبارك وتعالى أخيرا وحيالها بشأن intayna soo gelina ku soo dhaweynayna waxa kamid ah man ku qaabilayno inaan ilaahay barino tabaaraka wa tacaala siday salafku ahaan jireen ridwaanullaahi calayhim sida aahaarta ku imaanaysa waxay ahaan jireen bishu intaynan soo gelin 6 bilood oo ka horeysa bisha ramadaan waxay allah weydiisan jireen inuu ilaahay bishan gaarsiiyo allahumma ballighna ramadaan ilaahu ramadaan na gaarsiiyo إله جانس كان نسي مركي صوت بيشو صوغ شوي قارانا وي حاليلانا دذلك أقبضن بي بحين شيرين وي كفا إلي سن شيرين مركي بيشو رماتو اللحظة بلوده كدن بي سنة الله بي ويدي سن شيرين إنو كأقبله وحي دذال إيا خيري بيشا لي مادين وفي رسمركا نلوشو هذا تير بحاك أي كوة ريغي سوار رمضان marna allow na gaarsiin marna allow naga aqbal way muhiimada ay leedahay baad garanaysaa maxay yeelay hal habeen oo kamida bisha barakaysan ayaa 83 sano amalkooda ka khayr badan xagay wax kale yaala bil kalamiya wanaagaasi ku jira ninka dayacan waa ninkii fursadaasi dhaaftay isagoo dayacay ninka liibaanayna waa midka fursada intuu ilaahay gaarsiiyay ka faa'iideystay mid kalena waa in xusuusin waxa laga yaabaa inay noqoto fursadii kuugu dambeysay noloshaada ramadaanku soo marakii ugu dambeeyay inuu yahay dhici karto ajalka gacantaada kuma jiro adiguna isuma talisid xilligaad dhiman garan maysid goobtaad ku dhimanna garan maysid sababtaad u dhimanna garan maysid hawl rabbi weeye tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed wax kaa tagay soo noqon maayo wax soo socdana maba ka war haysid wuxuu la imaan doono waqtiga marka ku aad haysatay ku hor yaala kaasaad uga faa'iideysan lahaa loo baahay in badan oo walaalaheena oo muslimiina ahlul iimaan ah ahlut taqwa ah ahlul khayraat ah oo bishii ramadaan ee sanadkii tagay in la soomay oo cibaadaystay oo dadaalay ayaa maanta jaaniskan aan mar labaad helin dhulka ka hooseeyo qabriyada ku jira laga yaabo mid iyaga kamida maanta hadii la dhihi lahaa maxaa lagu siiyaa inuu dhihi lahaa dib hal la ii celiyo si aan mar kale ramadaankan uga soo faa'iideysto laakiin ma jirto waxa dhici karta adigana ramadaankan inuu yahay jaaniskii kuugu dambeeyay oo aad ku jirto ramadaan wixii ka dambeeya dadka la qaadi doono oo safarta iyo socdaalka dheer gali doona inaad kamid tahay dhici karta wabitaali waxaad ugu talagashaa oo u xisaabtantaa inay tahay jaaniskii kuugu dambeeyay sidaad u sahay qaadan lahayd rabbiga ula kulmi lahayd aad xisaabtaadiyo kownkaaga wax fiican u gashan lahayd hawlku taalaway rabbigana kaasha tabaaraka wa tacaala sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية والأمن والأمان يا حي يا قيوم اللهم وفقنا للاستفادة منه حق الاستفادة
اللهم وفقنا للاستغلال في الخيرات والطاعات فيه يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.